ciidamada xoogga dalka oo taageero ka helaya diyaaradaha waxduqeeye ee Mareykanka ayaa maanta waxay howlgallo ballaaran oo safa ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. warbaahinta dawladda ayaa tabisay in howlgalkaasi laga sameeyay tuulo lagu magacaabo Buule Maxamed Cabdal oo hoos tagta degmada Owdhiigle ee gobolka Shabeellada Hoose. howlgalka iyo warbaahinta dawladda tabisay inay si wadajir ah u sameeyeen sirdoonka qaranka iyo saaxiibada caalamka isla markaana halkaas lagu bartilmaameysay dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo dawladda ee dagaal adag kula jirto. waxaa la sheegay in 19 ka tirsan dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab lagu dilay howlgalkaas isla markaana saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ay sheegeen in ay burburiyeen gaadiid iyo hub ay lahaayeen dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab. howlgalkan ayaa imaanaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay uu gaabis ku yimid gulufka dagaal ee ka dhanka dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab, waxaana la filayaa inuu dhawaan bilowdo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo ay ka qayb noqonayaan ciidamo ka socda dalalka diriska la Soomaaliya. dhanka kale ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal oo ka soo baxay dhinaca dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ku aadan howlgalkan ay ciidamada dawladda ay sheegeen inay ka sameeyeen tuulooyinka hoostaga degmada Owdhiigle ee gobolka Shabeellada Hoose. muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada nabad sugidda ayaa howlgallo culus ka wada Muqdisho iyo gobollada ku dhow, waxaana howlgalladaasi jab xooggan lagu gaarsiiyay dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwaas oo dhibaato u geysta dadka shacabka ay ku nool deegaanada ay ka harimiyaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Al-Shabaab waxaa laga saaray deegaaniya degmooyin in ka badan 15 sano ay maamulayeen tan iyo markii uu bilowday wejiga koowaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo markiisii hore ay bilaabeen dadka deegaanka u adkeysan waayay. kooxdaani dhibaatooyinka ba'an ay ku hayaan dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in ay sida u dhaqsiyaha badan la isu afjari doonto dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku sugan deegaanada iyo degmooyinka maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug si loogu dhaqaaqo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo laga bilaabayo deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. subxaanallah, ninkan aad arkaysaan oo ah 37 sano jir waxa uu nafta dhaafiyay oo mindi ku quuracay hooyadiis macaan oo 9 bilood uurka ku soo siday. waliba wuxuu qudha ka jaray iyada oo leh hooyo macaan hay dilin, alla hooyo waa xanuun, hooyo iga daa mindida, alla ceel badana. feerihiis intay la egyihiin bal fiiri, hooyadiis ayuu awood u sheegtay walina qudha ayuu ka jaray. wali waxaa la sheegay in ay maalmaha soo aadan rabtay in ay u guuriso wiilkeedan isaga gacantiisa ku dilay. hooyo miyaan u quuraa hadal xun, iska badaa inaan mindi iyada oo hooyo macaan dhehaysa ku jarjare. ilaahu ku naxariiso hooyo macaan, jannatul firdaws ilaaha ku geeyo. kana waxaan codsan lahaa in adduunka dushiisa ciqaab aad u xanuun badan lagu marsiiyo. aan u duceyno hooyadaas.